waxyaalaha la xidhiidha cilmiga networking-ka. si guud ahaana waxaanu soo wadnay protocol iyo qalabyo iyo technology kala duwan cilmiga network la xidhiidha. waxaan damcay videogan iyo laba video oo xiga inaanu ku barano 3 company ama 3 urur oo cilmiga networking-ka aad iyo aad uga qayb qaata horumarintiisa oo ay ugu horeysa iyana oo ITF ku xigto IEEE oo inta cilmiga networking ku dhex jirta aad maqli doontid laguna IEEE ba standard ka siisay iyana ayaa ciwaan ka siisay iyana asaasa marka waxaan damcay tutorial-ka oo kan 16aad iyo ka 17aad iyo ka 18aad waxaan ku soo qaadanaa 3 urur oo ka qayb qaata cilmiga networking horumarintiisa. haddaan ururka ugu horeeya soo qaadana ama kombiga ugu horeeya ayaa la yiraahdaa iyana maxay tahay goorma la asaasay maxay qabataa ayaan videogan insha Allah kaga warrami doonaa. hadaan ku soo dhawaano iyana ayaa la yiraahdaa waxaa loo soo gaabiyay iyana ayaa la dhahaa iyana hadaba maxaad kuwis iyana waayo aan ku soo dhawaano keena la subaxtaan qalinkeena la subaxan soo nugu calaamadina kuwis ayaan horta iyana waxa loo soo gaabiyay ayda ugu horeysa waxa loo soo gaabiyay waa internet baa loo soo gaabiyay eeda ku xigta assigned baa loo soo gaabiyay internet numbers baa loo soo gaabiyay eedana authority. horta waxa loo soo gaabiyay waa adiga haysa Soomaa iyana ayaa la yiraahdaa. iyana maxaa tahay iyana waxa weeyaan si guud ahaan tan waxa siliska ku qoran aanan akhrin. iyana waxa weeye waa urur aan Allahumma salli ala Muhammad aan ahayn urur ganacsiyeed ama urur faa'iido doon ah laakiin inkastoo faa'iido iyo wax ka qaato maadaama wax soo saartay laakiin si guud ahaan ma aha urur ganacsiyeed taasoo ujeedadeedu ugu badan ay tahay ciwaanada IP address-yada. waxaad maqashay ciwaan la yiraahdo public IP address waad maqashay private-ka ka doonto qaadan kara laakiin public-ka waxaad maqashay ciwaanka waa public oo dibadda lagu tagaayo internet-ka marka la booqano ciwaankaas cidda ciwaankan ku siinaysa ayaa la yiraahdaa iyana. si kala hadaan oo dhigno iyana waxay ka qayb qaadataa internet service provider-iska. tusaale marka dalka Soomaaliya aan joogno gaar ahaan Hargeysa ama Soomaaliland waxaa loogu maqaan sirida la yiraahdo waxaan soo siisay routerada ayna soo siiso waxaan ku qabanaa internet-ka ayayna geeyaa marka laba kala saaray waxay guriga noo yaal internet maaha laakiin internet-ki waa wadadii noo geenayay wala sata routeradu maaha internet laakiin waa wadaqadii iyo qalabkii internet-ka noo geenayay. qalabyadan cidda ciwaanada siisa ayaa la yiraahdaa iyana. maxaa la yiraahdaa iyana ayaa la yiraahdaa iyana hadda waxa meesha siliska dan ku qoran akhrinay iyana waa organization kaasoo overseas ka warhaya allocation IP address-yada UCA internet service provider-iska UCA kuwan aganaga nama siiyo oo si toos ah loo xidho laakiin shirkooyinka internet service provider-sida soo gashada iyo telesoomta qolada cidda internet service provider-ka cidda siisa ayaa la dhaayaan. iyana waxa la aasaasay 1970 si aad wax weyn ugu ogaatid intaan sheegi doono ma inta ka shaqeysa darati iyo macluumaad dheer aad u ogaatid insha Allah waxaad booqan doontaa website-ka www.iyana.organization ayaad booqan doontaa insha Allah. iyana badanaa logadeeda ama brankeedu waa sida ay ku qorantahay internet assigned number and authority. iyana garanay inaad tahay shirkadda aadka company-ga aadka ama organization ka weyn ma adiga si toos ah ula xidhiidha sheegday qoreenka internet service provider-ka mise branch caalamka oo kale may si toos ah lama xidhiidho qoladan la internet service provider-ka waxa ay qaarad walba ama haddana caalamka hore waxa ku leedahay branchyo. tusaale markaad joogtid Allahumma salli ala American waxa ku leedahay branch-ka u maamula IP address-ka qaybta hadalkayga office arinta waxa loo sagaabiyay American Registry for Internet Numbers. marka America joogtid qaybta internet service provider-ka siisa waxa la yiraahdaa arin ayaa la yiraahdaa. marka hadda arin waxa ay ka tirsan tahay waa branch kamid branch iyana
taas oo internet service-ka provider-ska ka dhex dhisan America ayay siisaa. tusaale ana hoos u daadegno horta tusaale waxay noo dambeeyay waxa kaloo jira mid la yiraahdo RIP NNC oo loo soo gaabiyo Rescues IP Europeans oo ah halka qaybta Europe cida siisay IP address-ka public-ka oo qaybisa. waxa jira APNIC oo loo soo gaabiyo Asia Pacific Network Information Center oo cida public IP address-ka siisa. Allahumma salli ala Muhammadin marka Asia aad joogtid. waxa jirta Latin American and Caribbean Network Information Center oo qaybtana LACNIC oo IP address-ka public-ka siisa dadka ama internet service provider-rada ka dhex dhisan Latin America. waxa jira AFRINIC oo iyadoo ah branch-ka ka dhex dhisan qaaradda Africa iyadoo qaaradaha ka dhex dhisan waxaan jiraa internet service provider-rada ka dhex dhisan internet service provider-ska ka dhex dhisan qaaradda Africa siisa. haddoo bal fiirso shirkadda la yiraahdo IANA qodobka u fiirso shirkadda la yiraahdo IANA internet service internet assignment number and authority waxa ay si toos u maamusho shantanba hoos wada shantan qaaradaha ka kala dhisan ayaa hoos wada shantan markay hoos yimaadaan shantana waxay internet service provider-ka siisayaan kuwa qaaradaha ka dhaxaysan. tusaale oo kale markaas waad arkaysaa si toos looma xidhiidhsanaa internet service provider oo waxay u sii maraysaa markood waxa la xidhiidhaysaa internet qolada u qaabilsan qaaradeeda. tusaale kale inaga maadaama Africa ka dhaxlisan waxa la xidhiidhaysaa AFRINIC waxa la sii xidhiidhaysaa ICAN si toos waxa loo xidhiidhaysaa IANA. marka si guud ahaan IANA waxa weeyaan waa organization kaas IP address-ka iyo waxaasi. haddii waxa su'aal IANA maadaama inta soo wentay mu'allima IP address-ka ma samay waxay qabataa saddex shaqo oo waaweyn ayay qabataa IANA. laakiin waxa lagu bartaa waxa weeye internet service provider-ka ayay siiyaan ciwaan. laakiin wadaas IANA dhow maxay qabataa saddex shaqo ee ugu waaweyn ay qabato IANA ayaa kala kow number assignment ciwaan siinta IP address siinta qala ee la siinay internet service provider-ska iyada ayaa siisa shaqada ugu waa number assignment. shaqada laba xilli domain name waxa weeyaan marka website-dada waxa jirta website walba xilli domain oo khaasada tusaale www.somali.network.biz oo kale cidda ila waxa la doonaya inaanu qof la mid ah inaanu jirin. tusaale maanta arkimaysa Somali network classroom hadaan leenahay anagu website-ka qolo kale oo meel ma jirto qolada sida dadka tusaale telesomaati markaad qabatid numberkaaga weliga ma aragtid cid kale numberkaaga siita oo maya maadaama telesom numberada sana ay u kala qaybinayso aanay rimin number cid siisay number labaad siin IANA waxa jecel domain ay cid siisay inaana cidka labaad aanay siin waayo way isku khalkhalaya. shaqada waxa domain nameska inay kala ilaaliso oo aanay mid ay bixiso mar labaad inaanay bixin. shaqada saxay protocol barantis protocoladana inay hormariso ama maamusho iyadana ka qayb qaadata. marka IANA waa urur saddexda shaqo ugu waaweyn qabta haday noqotay IP public IP address-ka inay siiso haday dhiso domain nameska magacyada iyo website-yadu leeyahay haday rabto protocolada inay ka hormariso. IANA si dhowr jeer hore sheegnay sida rabtid IANA inaad intaan sheegnay ka badan oo aad 100% aad kaga faa'iideysid waxaad boqon doontaa website-kooda www.iana.org. intaasaan kusoo koobinay fiidiyoga ka xigta ku kulmi doona. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.